xidiga muslimka ee Mas'uud Özil ayaa ugu dambeyn ka guuleystay tababare Mikel Arteta oo u dhexeeyay khilaaf keenay in laacibka reer Germany laga saaro liiska ciyaartoyda kooxda ee tartamaha Premier League iyo Europe League. Kubad sameeyahan ayaa ugu dambeyn inuu u ciyaaro Arsenal bishii Maaj ee horaantii sanadkan waxaa intii ka dambeysay uu mushaarkiisa xad-dhaafka ku qaadanayo gurigiisa iyadoo aan ku lug yeelanin kulamada kooxdiisa ilaa laga gaaro bisha January. Özil oo dagaal dhinaca baraha bulshada uu kala dhaxeeyo tababaraha ayaa waxa uu taageero ka helay jamaahiirta kooxda oo dhinaciisa la safatay iyadoo qalbiyadooda degay markii uu ugu deeqay mushaarkiisa. Gunners Urusa oo ay kooxdu shaqada ka ceyrisay iyadoo ku andacoonaysa dhaqaale xumo. Heshiiskii uu Özil kula jiray Arsenal ayaa ku eg dhamaadka xilli ciyaareedkan waxaanu iska diiday inuu tago meel kale ilaa inta uu qandaraaskiisu ka dhamaanayo iyadoo ay soo baxeen fursado uu ku helayo naadiyo wadamo kale ka dhisan. 32 jirkan ayaa hadda u muuqanaya inuu ka adkaaday tababare Mikel Arteta oo ay kooxdiisu ku dhibaatoonayso inay natiijooyinka ka keento horyaalka Premier League iyadoo ku jirto kaalinta 15 isla markaana ay leeyihiin hubaal abuuradii kubaddan gaarsiin lahayd weeraryahanada. Toddobaadkan ay warbaahinta kasoo muuqanayeen shakhsiyaad saameyn ku leh kooxda oo ka dalbanaya Arteta inuu raaligelin siiyo Özil kadibna uu dib ugu soo celiyo safkiisa uu ugu caawiyo inay ka baxaan dhibaatada haysata. Mikel Arteta ayaa ugu dambeyn u muuqday inuu xaqiiqsaday inuu qalad weyn ka sameeyay in liiska ciyaartoyda kooxdiisa uu u gudbiyo Premier League uu ka reebo Özil wuxuuna diyaar u yahay inuu saxo bisha January.